maxaa dhacaya haddii qofka hal mar uu cabo biyo aad u fara badan. Sida hortiina ka arkaysaan caadiyan kiliyaha 800 oo ml ilaa 1 litir ayay celcelis ahaan ama ugu badnaan saacadiiba ee filter garaysaa ama ay nadiifisaa. Marka qofka markii uu cabo biyo aad u fara badan si degdeg ah waxay arrinkan culays fara badan ama dhibaato ku noqonaysaa. Sida hortiina ka arkaysaan kiliyihii maadaama aysan xamili karin wax ka badan 1 litir in saacadii kelida ay nadiifiso taasoo ugu dambeyn qofka haddii muddo dheer uu ku celceliyo dhaawac ama dhibaato u geysan karto yacni keliyaha. Sidoo kale cabista biyaha fara badan oo qofka hal mar sameynayo yacni waxay qaldaysaa isku dheelitirka macdanta jirka sida sodiumta wax la mid ah oo qofka wuxuu galayaa xaalad u muuqata hyponatremia oo ah in macdanta sodiumta ay yaraato maadaama biyo fara badan uu cabay. Arrinkaas marka waxay sababaysaa in yacni shaqadeedii meesha ka baxda ama yaraato. oo sida hortiina ka arkaysaan qofka oo dareemo dawaqaad madax xanuun caajis tabar darro iyo wax la mid ah focuska ama shayga diiradda inuu saaro inuu ku adkaato doo wax akhrinayo doo wax baranayo wax la mid ah ama shaqo uu hay marka cilladahaas ayaa ka dhashto haddii ay noqon lahayd kelida yacni in biyahaas faraha badan la qofka hal mar uu qaadanayo haddii lagu celceliyo inay dhibaato u keento ama inay baraxda macdanta sodium maadaama biyaha aad iskaga badiyo marka waxaa fiican qofka maalintii oo dhan marka la dhahayo 2 litir ilaa 3 litir cabo waxaa loola jeedaa maalintii oo dhan hal mar maaha qofka inuu cabo tusaale qofka oo dhaho oo kale يعني ما أنتو إذا البي معبد إنه هالمرة اللي تري وحكي بدن عاو ما دام جيركو سن حملي كرن وحافي عن 6 ترتيب خفكينو بيها وقعته هالمرة وذا قاعدين مركنا فانتا يا رجاني السلام عليكم